السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada qiso cajiib oo dhex martay wiil iyo hooyadiis. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saara channelka mahadsanid. waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah da'diisuna ay tahay 18 jir. hooyadiis ayuu ku dhahay hooyo markaan gaaro 20 sano maxaad hadiyad iin siin doontaa? hooyadii waxay ku tiri wiilkaygiiyow waqtiga ma dhow iska sug Allahna gaarsiiye. wiilkii markii uu gaaray da'da 19 jir wuu xanuunsaday weliba xanuun daran wuxuuna galay isbitaal. dhakhtarkii isbitaalka waxa uu ku yiri wiilka hooyadii wiilkaaga waxa haya xanuun daran wuxuuna ka xanuunsanayaa qalbiga ama wadnaha. hooyadii waxay ku tiri dhakhtarkii khayr bay noqon doontaa waxayna ku noqotay qolkii uu wiilkeedu ka jiifay isbitaalka. markuu arkay hooyadiis oo murugaysan wiilkii waxa uu ku yiri hooyo dhakhtarka muxuu ku yiri waa dhimanayaa soo ma ahan? hooyo xanuunkayga daawo ma lahan miya? laakiin hooyadii wiilkeeda wax jawaab ah ma aysan siin waana ka soo baxday qolkii wiilkeedu ku jiray. muddo kadib wuxuu caafimaaday waxaana laga soo saaray isbitaalkii isagoo 20 jir ah waxaana la geeyay gurigii ay deganaayeen isaga iyo hooyadiis. wuxuuna eegay geesihiisa wuxuuna ka waayay hooyadiis. wuu raadiyay wuuna waayay laakiin sariirta hoosteeda wuxuu ka helay warqad ama fariin ay u qortay hooyadiis. waxaana ku qornaa fariintan sida tan. fariinta waxaa ku qornaa qoraal cajiib ah waxayna ahayd sida tan: wiilkaygiiyo maanta waxaa maalinta aad igu tiri haddaan gaaro hooyo maxaad hadiyad ii siin doontaa 2 sano ka hor? hooyo xasuuso maalintaas ma garanayn waxaan hadiyad kuu siiyo waqti xaadirkaas laakiin hooyo maanta waxaan hadiyad kuu siiyey noloshayda waxaan hadiyad kuu siiyey qalbigayga waxaana kuu bixiyey wadnahayga ee hooyo iyo xafid. taasi waa hadiyada ugu qaalisan qof bini aadam ah ku siiyo. hadiyadaas cidna ma bixin karto ilaa ay aabba iyo hooyo mooyaane. allow hooyo abaalkeeda janno ugu badal aamiin. fadlan sii share gareeya mahadsanidin.